kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu dambeeyey aynu ka helayno dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya oo sheegtay inay si buuxda ula wareegtay deegaanada Axmaarada iyo Canfarta. Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday dhammaan dhulkii ay fallaagada TPLF qabsadeen inay kala wareegeen, kuwaasi oo ku yaala deegaanada Axmaarada iyo Canfarta. Xafiiska adeegga isgaarsiinta dowladda ayaa sheegay mar haddii deegaanadii ay TPLF haysteen laga xoreeyay, tallaabada xigta ay noqonayso dadkii ay dagaaladu barakiciyeen sidii ay deegaanadoodii dib ugu noqon lahaayeen. Waxay dowladda Itoobiya ku eedeysay TPLF bilooyinkii ay deegaanadaasi gacanta ku hayeen inay gabadfallo isugu jira jirdil iyo kufsi ka geysteen, taasi oo loo saaray guddi gabadfalladaasi soo baara. Go'aamadeenna ma ahan kuwa dareen laablakac lagu go'aamiyo, waxaa sidaas yiri Abiy Ahmed. Hadalkan Abiy Ahmed ayaa ku soo beegmay xilli Axmaaradu ay aad uga cadhootay go'aankii dowladda dhawaan qaadatay ee inaysan ciidamadeedu Tigreega gelin. Waqooyi Gondheer waxaa ka socda dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada huwanta iyo kuwa Tigreega. Dagaalka waxaa si weyn uga qayb qaadanaya siday wararku sheegayaan diyaaradaha dagaalka. Militariga Itoobiya oo lagu amray inaysan gelin gobolka Tigre. Ciidamada Itoobiya ayaa amar lagu siiyay inay ku ekaadaan gobolada Canfar iyo Amxaara oo deris la ah gobolka Tigre kadib markii goboladaasi laga saaray dagaalamayaasha TPLF. Madaxa warfaafinta Itoobiya Dr. Legesse Tulu ayaa sheegay in go'aankani uu yahay mid kumeel gaar ah oo la midnimada qaran waa laga gaaray hadafkii koowaad ee laga lahaa, taasi oo ahayd in TPLF laga xoreeyo meelihii ay qabsadeen, ayuu yiri Dr. Legesse. Wuxuu sheegay in marka ay ku habboon tahay un la qaadi doono wax tallaabo ah inta ka horeysana ciidanka laga ilaalinayo in wax dhib ah uu soo gaaro. Dhanka kale wuxuu u sheegay in kooxda TPLF ay qorsheynayso inay furato dacwado iyadoo askartii dagaalada kaga dhimatay ay ka dhigayso dad shacab ah. Balse Dr. Legesse waxa uu sheegay in dowladda ay xaq u leedahay iyo waajibaad in ay gasho gobolka Tigre xilli walba si ay u gudato waajibaadkeeda ka saarin ilaalinta qarannimada dalkeeda. Toddobaadkii hore wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa u sheegay diblomaasiyiin shisheeye oo Addis Ababa kula kulmay in Itoobiya aysan wax dan ah oo weyn ay ka lahayn in TPLF ay ka daba tagaan gobolka Tigre. Waxaa kale oo uu sheegay in dowladda ay xaqiijin doonto in TPLF aysan dib u soo qaadin weerar dambe, iyadoo dowladda ay dhowri doonto xuquuqda aadanaha. Dagaalkan oo socday wax ka badan muddo sanad ah ayaa geystay khasaare culus oo bini'aadanimo. TPLF ayaa sheegtay inay isaga baxday deegaanadii kale ee ay ka qabsatay gobolada kale. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xirtay terminalka Mafcon ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kaasi oo ay adeegsan jireen qaramada midoobay Amisom iyo safaaradaha reer galbeedka. Warqad ka soo baxday maareeya ku-xigeenka garoonka Aadan Cadde Caydaruus Axmed Kaahiye ayaa lagu sheegay in go'aankani la qaatay kadib markii amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Duulimaadyada Amisom, qaramada midoobay, safaaradaha reer galbeedka ayaa lagu wargeliyay in hadda kadib ay adeegsan doonaan terminalka shacabka caadiga iyo qaybta VIP-da. Warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo ay heshay warbaahinta ayaa lagu sheegay in dhowr sababood oo loo xiray Mafcon oo ay ka mid tahay in ay adeegsadaan rakaab aanan ahayn Amisom iyo qaramada midoobay, taas oo jebinaysa hanaanka socdaalka sharciga. Waxaa sidoo kale warqadda lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigteen garoonka iyagoo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbinin dukumeentiyada rasmiga ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah duulimaadyada adeegsadaan Mafcon ay soo qaadeen dad aanan haysanin baasaboor, taas oo ka dhigan inay si sharci darro ay ku soo galeen Soomaaliya. Jubbaland oo hab ka duwan Galmudug iyo Koonfur Galbeed u qabanaysa doorashada. Xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Kismaayo. Guddiga doorashada ee Jubbaland ayaa soo gudbiyay liiska guddiyada ergada diyaarinaya, waxayna isugu jiraan oday dhaqameedyo iyo bulshada rayidka ah. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Said waxay halkaani ku soo gudbinayaan guddiyada xulista ergooyinka kuraasta 6 ah ee la shaaciyay 23 bishaani, kuwaasi oo kamid ah 43 kursi ee ku astaysan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashada Jubbaland. Doorashada 60 kursi ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka qabsoonto gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo oo haatan laga dareemayo qabanqaabo xoogan. Jubbaland ayaa u muuqata inay si ka duwan u maamuli doonto doorashooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed iyo Galmudug, waana maamul goboleedkii ugu horeeyay ee soo bandhiga guddiga soo xulista ergooyinka, taasi oo aysan hore u sameeynin maamulada kale.
sidoo kale waxay tallaabadani furi u noqon doontaa hanaanka daahfurnaanta ee doorashada golaha shacabka oo haatan cabasho xoogan ay ka muujinayaan xubnaha mucaaradka. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay liiska xubnaha gudiyada ee soo xulaya ergada dooranaysa 6 kursi ee ugu horeysa. ugu dambeyntiina madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farooli iyo Cabduuli Cali Gaas oo wehelinayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta u safray Puntland. mas'uuliyiintan ay wehelinayaan xildhibaano iyo odayaal dhaqameed ayaa saacadaha soo socda gaari doona magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. ujeedka safarka madaxdani ayaa la xiriiray sida ay qayb ugu noqon lahaayeen dadaalada nabadeed ee lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisadda dagaal ee Boosaaso. Faroole, Gaas iyo Sharmaake ayaa wada hadallo ka dhex bilaabi doona Puntland iyo BSF waxayna sidoo kale la kulmi doonaan isimada dhaqanka ee haatan ku howlan sidii wax looga qaban lahaa muranka ka dhashay xilka qaadistii agaasimihii BSF-ta. socdaalka mas'uuliyiintani oo aad looga soo dhaweeyay ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay Dani uu jeediyay khudbad xasaasi oo kaga hadlay xaalka Boosaaso kuna baaqay nabad. Puntland ayaa xaalad dagaal gashay kadib go'aankii xilka qaadista ee Generaal Maxamuud Cismaan Dayano oo uu kaga hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulkaasi.